halkaas markay marayso waxay ahayd arrin la filan waayey sababto waxa weeye waxa dhacay in wada hadal dhab laga galo oo heer wasiir iyo heer safiiro iyo ay bisleeyaan bay'ad madaxweyne inuu bilaabo ma ahayn waxaan kaloo meesha ku jirin in madaxweynaha Soomaaliya nin la siman ama ra'iisul wasaaraha oo ajnabi ka kaxeeyo inuu Nairobi ka dhigo ayadoo aan xiriirka la soo celin iyadoo aan la isugu saraaxin iyadoo aan hoos loo wada hadlin wax walba laga heshiin intaas waxa weeye waxaan filanayn waxa kaloo aan filanayn waxa weeye iyadoo arrinta aan cid lagala tushan oo hadii la ku roon yahay dib loo soo noqon oo la fagurin in la yiraahdo waa lagu heshiiyey waxa lagu heshiiyey wax kale ma aha waa badayadii baddu waxay tiilay maxkamad bay tiilay markaad fiirisid meediyaha rasmiga ah iyo kuwa aan rasmiga ahayn private-ka ah Kenya iyo Ethiopia waxay sheegayaan in dawladda Soomaaliya ay ogolaatay in maxkamaddii soo noqoto in la qaybsado badii waxaasi waxde la garan kara ma meediyaheena khaasatan madaxtooyada war ka soo baxayna war ka duwan oo maxaa xiriirka xoojinta xiriirka labada dal iyo wax la mid ah mawduuca loo tagay waa noognahay bad baa meesha loo tagay ilaa hadda kama hayno madaxtooyada warar ka soo baxay baddaas arrintaas marka arrin khatar ah oo qarannimada Soomaaliyeed iyo hantidii Soomaaliyeed iyo karaamadii Soomaaliyeed taabanaysa weeye anagu xilibaan aan waajibna saaran waxa weeye hadda fasax baa lagu jiraa labada gudoomiye labada aqal inay u yeeraan shir emergency arrinta laga hadlo baarlamaanka laga horkeeno oo madaxweynuhu keenay heshiiska soo galay wuxuu yahay say turkitaanka uga baxdo saacad ummadda Soomaaliyeed loogu sheego hadday cadaato waxa hadda meediyaha Kenya iyo Ethiopia sheegayaan hadda arrintaas waa arrin khatar weeye cidii gashay baana xilligeeda qaadanaysa haddii laakiin ay cadaan weydo oo inuu soo celiyo xiriirka ay ku egtahay haddee iyada laftigeeda waxaa la soo haystaa procedure-ka loo maray habkii iyo hannaankii loo maray ma ahayn inay madaxweyne ka bilaabato madaxweynuhu ummadda Soomaaliyeed oo dhan buu sharafkiisa iyo karaamada uu dadkaas leeyahay iyo geesinimadii leeyahay iyo qabku leeyahay iyo islaamnimadu leeyahay jira ummadda Soomaaliyeed Kenya uma gurguran karto mana ay muxuu ahaa cara celin karto ayadaa laga caraysiiyey waxay ahayd madaxweynuhu arrintaas tigidda ah intaa wax kaleba la gaarinba arrin uu ku fududaaday bay ahayd arrin habboonna maaha anu sidaasaan rabaa shakhsiyan waxay xildhibaan mas'uulku marka arrimaha dibadda ka dhaxgaas oo soo tagno arrimaha gudaha marka fiirno maanta Soomaaliya gaar ahaan magaalada